ciidanka sida gaarka u tababaran ee Danam oo kaashanaya howlgalka Africom waxa ay saacadihii ugu dambeeyay howlgallo ciriya dhul ah ka fuliyeen deegaano ka tirsan Jubbooyinka kuwaas oo qasaare xoog leh loogu geystay Al-Shabaab. howlgalladu aad iyo aad bay maaragtay toddobaadyo la soo dhaafay u badnaayeen marka waxa weeye laba qaybood ay ka koobnaayeen qayb luqta oo maaragtay dhulka iyo qayb hawada labada howlgallo way barbar socdeen marka xaaladda guudna waxa weeyaan cadowgan baa lagula dagaalamayaa howlgalladaas ujeedaduna waxa weeyaan in ummadda Soomaaliyeed laga qabto nimanka. taliyaha ururka afraad ee Darab ee xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanle dhexe Xasan Maxamed Ciraaq ayaa Radio Muqdisho u sheegay in duqeynta lagu bartilmaameedsaday saldhigyo muhiim ah oo ay ku sugnaayeen horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab halkaas oo qasaare xoog leh uu ka soo gaaray kooxda. runtii waxa weeye howlgallada xagga hawada ka dhacay xalay way dhaceen habeen hore dhaceen toddobaadkana dhan duqeymahaas way socdeen marka meelaha ay ka kala dhaceen waxaa kamid ah oo goobta ugu weyn nimanka inta badan khasaaraha badan uu ka gaaray waxa weeyaan lagta caanoole meel yiraahdo degmada badhaadhe hoostata iyada laftirkeedu marka lagtaas caanoole bays weyn oo ay ku lahaayeen ay muddooyinkan isku urursanayeen kadibna ciidamadu xogta rasmiga ah ay heleen marka waxa weeyaan dagaal xagga hawada ah lagu qaaday dib fara badan baa halka ka soo gaaray nimankaas cadowga waana la baabi'iyay guud ahaan waxaa la dhihi karaa bayskii halka ku yaalay wax kala carba iyo wax dhintiyo wax dhaawacmay intaan bay noqdeen. qasaaraha maxaad ku qiyaasteen marka xog ma ka hesheen inta qasaare ah oo meesha ka dhacay? ilaa hadda xogta waan ku guda jiraa waan ururinaynaa laakiin wararka hordhaca ee soo gaaraya waa inuu khasaare badan uu nimanka soo gaaray intaa weeyaan. taliyaha oo aan weydiiyay suurtagalnimada in duqeymahaasi ay dad shacab wax ku noqdeen ayaa yiri taas waxa weeyaan maaragtay qorshaha la diyaariyay waxa weeyaan qorshe la hubo oo cad buu ahaa marka ummadda Soomaaliyeed runtii bayska ay cadowga halka ku lahaayeen maaragtay wax shacab oo ka agdhawaay ma jirin iyaga markii hore dadka ka fogeeyay oo dadka iyaga iska kala cayriyay marka taasina waxay keentay in ay suurto gasho in nimankaas si dhab ah oo waxa weeye taxadar leh looga howlgalo. dhanka kale ciidanka sida gaarka u tababaran ee Danam waxa ay 24 saac ee la soo dhaafay fuliyeen howlgallo dhulka ah oo ka dhacay deegaano kala duwan oo ka tirsan Jubbooyinka kuwaas oo qasaare loogu geystay Al-Shabaab sida uu ii sheegay taliyaha ururka afraad ee Darab ee xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanle dhexe Xasan Maxamed Ciraaq isla markaana ay sii daayeen maxaabiis u xirnaa kooxda. runtii waxa weeyaan maaragtay ciidamada sida gaarka u tababaran ee Danab dhulka ay tageen ee ay ka howlgaleen waxaa kamid ah waxa weeyaan magaalada Buulaxaati la yiraahdo waxa weeye degmada badhaadhe hoostagta iyo waxa weeyaan beer xaani meesha la yiraahdo Kanjaroon waxa